joogsada gulufiyo colaad gabagaba dagaal gulufiyo colaad gabagaba dagaal geesigan kalaabani kaadadow dhigo waanu ugu faraxsannahay inaad noogu timaado jiidda tukarraqeed oo ah jiidda u horraysa ciidanka qaranka ugu horraysa halkaasoo ciidanku uu joogo si qurux badan oo mooral leh oo uu fahansan yahay ama aaminsan yahay waajibaadka guud ee uu qaranka iyo xuduudihiisaba u hayo mudane madaxweyne ciidanka qaranku xagga dagaalkoo keliya ma aha waa ciidan bulshada u la joogo dhaqan wanaagsan kula dhaqma mar waa samafal mar waxa weeyaan waa cuqaal oo xagga nabadgelyada cuqaal buu ku yahay markaa madaxweyne ku soo dhowow ciidan mooralkiisu 100% yahay oo aad u wanaagsan mudane madaxweyne waxaa ku diyaara oo si kaliya laaba ku soo dhoweynaya ciidanka qaranka jiidda tukarraqeed deganaana muddo imaka sanad laga joogo aynu marayno bishii 11aad bishii koowaadna waanu nimid 8deedii waxaa ilaahay mahadiya si nabadgelyaa maanta haddii aad nagu dhex marayso ood kugu soo dhoweynay saaka halkii jiidda hore ee tukarraq si hambalyo iyo kal iyo laable annagoo gudanayna waajibaadka qaranka oo weli wax noo dhiman yihiin dalkii iyo dadkiiba aanaan gudan wixii aanu lahayn oo 60 kilomitir naga horrayso xuduuddii somalilan waxaanu kugu soo dhoweynaynaa si kal iyo laba waxaan u malaynayaa warkii jiidda madaxdii qaranka ciidanka qaranka iga horraysay baa yidhi waxba ku dari maayo waanu ku soo dhoweynaynaa annana waa nabadgelyo qabnaa dalkan aanu joognaana si wanaagsan ayaa dadkanina noola nool yahay noola shaqeeyey waxay markii hore moodayeen markay ciidamadii noqon waayeen ayay waxa ay fahmeen in ay dantoodii aanu wadno wayna soo dhoweeyeen waa u hambaliyeynaynaa dadka deegaanka jooga halkan waxaanu joognay sanad 14 sanana waxaanu joognay xaggaa dambe macnaha 15 sanaanu joognay jiidan waxa weeye sanadkaanu halkaa joognay 2 dagaal oo adag baanu galnay dagaalkaanu ku jirnana waxa weeye waa mid maalin joogtaa mudane madaxweyne ciidanka iyo saraakiishu dhammaantood si wanaagsan oo kaliya laabo ay ku soo dhoweynayaan wayna ku sugayaan madaxweyne mudan madaxweyne kulley raggii jiidda joogay ayaabaa dhameeyey taliyaashii rasmiga ahaa ee jiiddana dhameeyey xaaladda meesha waxaanu degnay 8 bishii koowaad baa ciidanku degay dhowr dagaal baa ku dhacay dhowrkii dagaalna guul weyn bay ka soo hoyeen oo ciidanku wuu garanayaa wuxuu halkan u joogo inay tahay waajibaadkiisa ka mid ah oo ay ummadda somaliland ku leedahay inuu fulinayo mudan madaxweyne adigoo dad ciidamada soo maray wax weynna ka yaqaanaa aad baan kugu mahadinaynaa intii aad joogtay sidii wanaagsaneed ciidanka u taakulinaysay iyo sidaad mar kastaba niyada ugu hayso tamari halkayga weeyi laakiin sidaad mar kastaba ii weydiiso ee in wax loo qabto ciidanka aad doonayso mudan madaxweyne waa kolley markaan hawsha gudanno abaalmarinteedii waanu kaa sugi doonaa laakiin waxbaa noo hadhay hadda laakiin markaan gudanno abaalmarin waanu doonaa mudan madaxweyne waxaan ku kalsoonahay anigoo xoogaal ku ah inaad mar kastaba jeceshahay in ciidanku ood mar u taqaanood hore u soo martay inaad xoog adiga goraal ku dhiirigeliso anaad igu tidhi sanadka soo socda waxaan ciidanku mudan madaxweyne hadalka sii dheerayn maayo